Mustafa waa wiil Carab Muslin ah, waana naqshadeeye baabuur kaas oo ka shaqeeya waddan Yurub ka mid ah. Isagoo ka adeeganaya supermarket ayuu arkay gabar Muslimad ah oo xiran indho shareer, taasoo adeeganaysa. Markii ay soo dhamaysatay adeegeedii ayay timid meeshii lagu bixinayay lacagta si ay isaga bixiso adeegii ay soo qaadatay lacagtiisa. Gabadha kaashiyerka ah waxay ahayd gabar Carab asal ah, waxayna xirneyd dhar aanan asturnayn, waxaana wejiga u marsanaa make-up saa'id ah. iyadoo caraysan ayay bilowday inay si xun u fiiriso gabadhii indho shareerka xirneyd. Waxay soo qaaday alaabtii ay soo adeegatay waxayna ku tuurtay dhulka si ay alaabta bacda ugu rido qaab jees-jeesnimo ah. Gabadhii niqaabka xirneydna waxay ilaashanaysay deganaanteeda, taasoo ka dhigtay gabadhii shaqaalaha ahayd mid aad uga sii caroota. Iyadoo u muujinaysa xaasidnimo ayay ku dhahday gabadhii niqaabka xirneyd, waxaa halkan nagu haysta dhibaatooyin badan. Mid ka mid a dhibaatooyinkaasna waa indho shareerka aad wadato. waddankaanna ma aha meel loo soo cibaadaysto ama lagu soo bandhiga diimaha. Waa inaad u laabataa waddankaaga haddii aad rabto inaad soo caanbixiso soona bandhigto diintaada. gabadhii niqaabneed waxay wejigeeda ka qaaday indho shareerkii, waxaana kadis ku noqday muuqaalka gabadha markay iska feeday indho shareerkii, iyadoo ahayd gabar aad u qurxoon misana leh indho buluug ah iyo timo cadcad. waxayna ku tiri gabadhii shaqaalaha ahayd, ma waxaad doonaysaa inaan ku laabto waddankayga? waddankan ayaa ah waddankayga asalka ah ee aabbayaashay iyo awowayaashay ay ku nool yihiin. diintan islaamkana waa diinta aan ku faano, adigoo kalena waa kuwa iska iibiyey diintoodii, annaga ayaana iibsanay diintan. kadibna waa ay dhaqaaqday. Mustafana wuxuu aad ula yaabanaa wixii uu maqlay ee uu arkay, wuuna daba kacay gabadhii. markii ay gurigeedii gaartayna waalidkeedii ayuu la kulmay, waxayna u sheegeen in Martina la oran jiray, kadibna ay islaamtay, magaceediina ay u beddeshay Faaduma. wuxuuna u sheegay waalidkeedii inuu doonayo inuu guursado gabadhooda. wuxuu kaloo u sheegay wax walba oo noloshiisa ku saabsan. maalmo kadibna gabadhii way ogolaatay, waxaana dhacay guurkii. waxayna kala heleen 3 carruur ah. muddo kadibna waxay ku laabteen waddankii uu Mustafa ka soo jeeday. markii ay carruurtii gaareen da'dii waxbarashada, wuxuu aabbahood u raadiyey iskuul qaas ah kaasoo leh manaahij wanaagsan, wuxuuna u sheegay xaaskiisii arrinkaas. laakiin waxaa kadis ku noqday markii ay diiday in carruurteeda la geeyo iskuulka. waxayna luqadeedii ku tiri, anigii adigaba waxaan nahay muslimiin, adiga waxaad taqaanaa luqadda carabiga, anigana ma fahmo ilaa ereyo yar mooye, laakiin waxaan aqaanaa hal arrin oo keliya, taasoo ah in qur-aanka kariimka uu yahay dastuurkeenna iyo manhajkeenna iyo waddada sharafteenna iyo horumarkeenna ay ku jirto. maxaan u dalayn la'nahay marka hore qur-aanka kariimka, kadibna aan carruurteenna barna culumta kale? aniga waxaan rabaa inaan ugu horeyn aan carruurteyda baro qur-aanka kariimka, xifdin, tajwiid, aqrin iyo tafsiir ahaanba, taasoo ah rajadeyda. laga soo bilaabo markii aan aqriyay xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa, iqra'u lqur'aana fa innahu ya'tii yowma alqiyaama shafiican liasxaabih, iyo xadiidkii kale uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku yidhi, sayaqruju aqwaamun min ummatii yashrabuuna alqur'aana ka shurbihim allaban. ayaan hubsaday in culuumta kalena aysan seegseegaynin. aabbihiina wuu diiday fikraddaas, isagoo xujo ka dhiganaya inuu carruurtiisa weli yaryar yihiin. laakiin xaaskiisa Faaduma waxay aad ugu adkaysay go'aankeedii, ilaa uu alle laabtiisa u furay kuna waafaqay ra'yigeedii. wuxuu bilaabay inuu raadiyo dugsi qaas u ah xifdinta qur-aanka kariimka. dhib badan kadibna wuxuu helay dugsigii uu rabay, laakiin dhibka jira ayaa ahayd in dugsigu uu ahaa dugsi ay ku jirayaan carruurta isbuuca oo dhan, oo aan loo ogolaanaynin inay arkaan ama soo booqdaan waalidkooda hal maalin mooye. wuxuuna arrinkaas u sheegay Faaduma si ay fakarkeeda uga laabato. waxayse ku dhahday hadal iimaan iyo runnimo ay ku dheehan tahay, waan ku sabrayaa kala fogaanshahaas, waana u dulqaadanayaa dhib kasta oo qur-aanka dartii loo marayo, waayo qur-aanka dartiis ayay u fududaanayaan wax walba oo adag. sanooyin kadibna waxay soo barteen oo ay soo xifdiyeen carruurtii qur-aanka kariimka, waxayna ka soo qalinjabiyeen dugsigii iyagoo aad ugu wanaagsan aqrintiisa iyo tajwiidkiisaba, oo haddii mid ka mida u aqriyo qur-aanka uu jeclaysanayo qofkii dhagaystaa inuusan joojin aqrinta qur-aanka. Mustafana farxad ayuu la dhoola caddeeyey, wuxuuna yidhi, waxa ay tarbiyaysay Faadumada Yurubiyaanka ahayd ee aan carabiga ka aqoonin ereyo yar mooye, taasoo jecel qur-aanka. waxayna i bartay in wax walba loo horo qur-aanka dartiis. ilaahana ku mahadsan oo na waafajiyey arrinkaas. walaalkiin Axmed oo idin leh, qoys dhis waa qaran dhis. qoys wax bartayna waa qaran wax bartay.
qof kasta oo soo saara awlaad ilaahooda ka cabsanaysa oo diinta ku dadaalaysa, rabbina agtiisa sharaf baa u taalla, dalkiisa iyo deegaankiisana wuu u hiiliyey. arrintan dad badan ayaanan ku baraarugsanayn. sii sheergaray oo bulshada kale la wadaag si aad adna ajar uga heshid.